بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ah Cabdistaan Maxamed Abane waxaan idiin soo gudbin doonaa cashar ku saabsan sida loo ogaado qofka ugu badan ee soo booqda profile-ka Facebook-aaga. Eegana waxaad soo dhigto inkastoo kastaan waxaan furayaa browser-kan ka galo oo ah Google Chrome. Waxaan kusii dhex qorayaa facebook.com. intaa kadib emailkayga ayaan gelinayaa iyo passwordka aan ku galo Facebook-a. login baan siinayaa markaana dabadeed Facebook galay waxaad ku dhufataa profile-kaaga. dabadeed waxaad taabanaysaa Ctrl+U. waxay isfuraysaa sadarka xagga sare daaqad yar oo cusub. daaqadaas oo ay wax fara badan ku qoran yihiin. intaa kadib waxaad taabanaysaa Ctrl+F oo ah find raadi. dabadeed waxaad ku qortaa qoraalka shaashada ku qoran oo ah chat friend. markaa soo koob ID-ga ugu horeeya weeyaan ka ugu soo booqashada badan ee profile-kaaga. markaad soo koobiso xagga dambe tuuba ka raacsan tuuba hadhow baan ku daba dari doonaa. ku noqo Facebook-aaga barta u sareysa ee slash ay ku jirto waxaad ku qoraysaa qoraalka yar ee idinka muuqda shaashada. profile.php (ID equal ID-gii). markaa tuugii baad ku daba daraysaa aan ka yimid markii hore. marka wuxuu noqday ka igu soo booqashada badan leh xasan manqaboojiye. iminkana waxaan eegi doonaa ka labaad ee igu soo booqashada badan leh. siday u kala horeeyaan ayuunbay ugu kala badan yihiin booqashada. halkana sidii hore un dheh ku qor profile intii yareyd profile.php equal ID-gii. ka ugu labaad ee igu soo booqashada badan leh waa Sahra Min Somaliland. intaa kadib ID-gu way fara badan yihiin ilaa wax fara badan bay noqon karaan. ka ugu dambeeyana ka ugu booqashada yar buu noqonayaa aan weligii maaha saan filayo aan kuba soo booqan ama hal mar kusoo booqday. marka imika waan iska baxayaa casharkuna intaas ayuu inoogu egyahay.